kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa kamid ah guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo maanta guddoon doorteen musharaxiinta mucaaradka dhexdooda waxa ay bilaabeen in iskala reebaan halka Puntland ay shaacisay inay qabatay shabakad arrimaha xasaasiya ka shaqeysa waa 5 bisha shanaad sanadka 2022 daawadayaal halkan waa janalka YouTube-ka dalka TV Media qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona fadlan daawada hadda nagu cusubtaa nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 saacan ku baahin doono janalka YouTube-ka dalka TV aragtidiina halkaas nagu reeb muuqaalkan si share gareeya laakiin waa inuu muhiim daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee baarlamaanka ayaa maanta doorteen guddoon cusub gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim ayaa furay kulankii ugu horeeyay ee guddiga isku dhafka ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo maanta iska dhex doorteen guddoonka hogaamin doona guddigaasi sidoo kale kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow iyo labada xogaye ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya musharaxiinta xilka gudoomiyaha waad isku soo sharaxay ayaa kala ahaayeen xildhibaan Maxamed Axmed Beerey senator Cabdiqani Geele Maxamed iyo senator Cabdi Ismaaciil Samatar halka musharaxiinta isku soo taagay xilka gudoomiye ku-xigeenka labaadna iyaguna tir ahaan gaarayeen 3 kuwaas oo kala ahaa senator Ibrahim oo Gaab Ismaan xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed iyo xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimow guddigan oo ka kooban 17 xubnood ayaa senator Cabdiqani Geele Maxamed oo laga soo doortay Puntland u doorteen xilka gudoomiyaha guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdiqani Geele Maxamed ayaa helay codad gaaraya 10 cod halka musharaxiintii la tartamayay iyaguna codadku u kala heleen xildhibaan Maxamed Axmed Beere oo helay 5 cod senator Cabdi Ismaaciil oo helay 2 cod sidoo kale guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa qabteen doorasho adag oo la xiriirtay dhanka gudoomiye ku-xigeenka guddigaas hogaamin doona doorashadan oo lisla gaaray ilaa wareega afraad ayaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga waxaa loogu doortay Maxamed Kheere Maxamed oo helay codad gaaraya 9 halka xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimow oo la tartamayo isna helay 7 cod xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay soo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha isla markaasna ay diiwaan geliyaan musharaxiinta madaxweynaha waxaana shaqadooda ay ku eg tahay marka la doorto madaxweyne dhinaca kalena musharaxiinta mucaaradka ayaa dhexdooda waxay bilaabeen inay iskala reebaan doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose iyo tan aqalka sare ayaa banaanka keentay guuldaro siyaasadeed oo soo wajahday xubno isku xiran oo musharaxiinta kala duwana kooxda mucaaradka midowday ayaa qaateen dhammaan kuraastii gudoonka iyada oo doorashooyinkaasna ay ku soo bixin wax musharaxa oo ay wateen garabka hogaamiya dalka taasi oo ay mucaaradku u arkaan mid bilow fiicana mucaaradku waxay isbideen guul siyaasadeed inay gaareen iyagoona iska dhaadhiciyay in laga guuleystay garabkii nabad guuldarada ku dhacdana laga tixraaci karo doorashada madaxweynaha qaabka ay noqon karto waxayna xaqiiqsadeen guul aan la hubin halka ay ku dambeyn doonto gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo ah mucaaradka gaar ahaan xisbiga himilo qaran lagu tiriyo isla markaasna xilkii uu ka hayay maalmo ka hor iska casilay intii uusan isku soo sharxin xilka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa guushiisa waxa ay xaqiijisay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed boorka iska jafo waxayna kooxdiisa ololaha doorashada dhexdooda qireen in madaxweynaha soo socda saadaaliyaan inuu Shariifka yahay waxayna bilaabeen dacayado iyo dagaalo hoose oo musharaxiinta kale ay ku fogeynayaan waa sida wararku qaar ay tilmaamayaan kooxaha qaar ee iska dhaadhiciyay inay iyagu hogaanka dalka qaban doonaan ayaa waxa ay bilaabeen propaganda ay ku marin habaabinayaan shacabka iyagoona adeegsanaya sawirada kulamo siyaasadeed ee madaxdoodu la qaadanayaan hogaamiyaal kala duwan xifaaltanka siyaasadeed ee musharaxiinta dhexdooda ka bilowday ayaa kan ugu daran midka ay kooxda ololaha ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ku qaadayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labada dhinac ayaa ololahooda si xooliya u socda wuxuuna mid walba ku jira dagaal hoose oo laga warqabin kaas oo guntiisa tahay colaadii hore iyo in Xasan Cali Kheyre lagu riixayo nabad iyo nolol oo hore uu uga tirsanaa sidoo kalena saadaasha mucaaradka kale ee tahay in haddii farmaajo wareega koowaad ku guuleysto in codadkiisa ugu shubi doono Xasan Cali Kheyre si walbaba ha ku dhacday Xasan Cali Kheyre
oo eed siyaasadeed iyo colaad kalaba kala dhexaysay mucaaradkii intii uu ahaa nabad iyo nolol. ma jirto meel uu cudurdaar ku siiyey madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif sheekh axmed, waana sababta hadda xifaaltanka keentay. Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo farqaha laga haysto waxaa culeys siyaasadeed uu ka haystaa deegaankii uu ka yimid ee Puntland. Dani ololihiisa doorashada waa siyaasiga kaliya ee suuqa soo geliyay dhaqaalaha ugu badan. hamigiisa doorasho marka laga soo tago colaada uu u hayo Farmaajo waa mid gaamurtay. ololihiisa waxaa qayb ka ah dagaal uu ugu jiro inaan dib dambe loo dooran Farmaajo. xiirka kala dhaxeeya musharaxiinta kale waa mid aan caga badan ku taagnayn oo mar walba la filan karo inuu lugta uu kula jiro mucaaradka kala baxo. waxaase loo arkaa musharaxa codkiisa gorgortanka siyaasadeed aakhirka ku galaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ololihiisa la dhayalsan karin waa hogaamiyaha kaliya ee 5 sano ee lasoo dhaafay kaligiisa cidiyaha kula dagaalamay Farmaajo. hadda wuxuu u muuqdaa inuu dhabarka jeedin doono kooxdii uu ka tirsanaa ee mucaaradka. wuxuu bilaabay ololeysi ku dhisan qabiileysi iyo in uu soo dhaweysto xubnaha ku matalayo baarlamaanka Soomaaliya. wuxuu kalsooni ka raadsaday madaxweynaha Galmudug, ra'iisul wasaare Roble iyo cid kasta oo arko inay iibi karaan. musharaxiinta miisaanka leh sida Daahir Maxamuud Geelle, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabduqaadir Cusuble ayaa kuwa qunyar socda oo gooni daaq ah. mid walba wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu ku kasban lahaa xildhibaanada cusub ee qaangaarka aan ahayn. gabagabadii musharaxiintii u midoobay Farmaajo ee wacdaraha dhigay doorashadii guddoonka baarlamaanka maanta uma muuqdaan kuwa ku mideysnaan doono in xilka la dhaafsiiyo Farmaajo. isku maqnaanshahoodu waxay fursad dahabi ah u noqon kartaa garabka nabad iyo nolol. وهاجي داود يالي مكان وحنو إيجينا بودلان وحا إشاعسي إني قبطي شبكة أريمة حساسية كشقينيس. دولة جولات بودلان أيها شاعسي إني قبطي شبكة دالك كدو فينجرتي ديرتا أما جيدها دالك كبحقار كواسي أولاغا غوري جري ديغانو كاكالا ترسان غوبالة بودلان جلمدوك سوماليلان يدولك دولة ديغان كسومالي دا قلبت أقاسما وزارة ديغان كبودلان عبد العزيز علمي النور أو ورئيسي غارة بحيني أي أشيغيني غانتا كوديغان من سوماليا أو استدالاشة دالك تنزانيا kaas oo ku eedeysan mashruuca dhoofinta dhirta Soomaaliya. agaasimaha ayaa sheegay in ninkan ay hayaan uu yahay maskaxdii ka dambeysay ganacsiga sharci darrada isla markaasna ay baaritaan ku hayaan muddo bila. sidoo kale agaasimaha Cabdicasiis Cilmi ayaa sheegay in kiiskan ay soo galeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland kadib baaritaan dheer oo la sameeyay toddobaadka dambana ayuu sheegay in ninkan iyo raggii la shaqeyn jiray ee maxkamadii soo taagi doonaan. ninkan la qabtay ayaa mar isku dayay inuu xabsiga ka baxsado sida uu sheegay agaasimuhu, balse ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay qabtaan iyagoo aan waxba gaarsiin. wuxuuna ahaa nin lacag tiro badan wata oo howshan aad u caadeystay lana saaxiiba ciidamada qaar iyo mas'uuliyiinta dowladeed. waxaan xog ku helnay in shixnad kartoomeysan oo dheer ah uu dalka ka dhoofinayo inuu baxsado ayuu isku dayay, balse waxaa lagu qabtay qardho ayuu yiri agaasimaha wasaaradda deegaanka Puntland. si kastaba tallaabadan ay qaada Puntland ayaa imaanaysa xilli hore Soomaaliya looga joojiyay dhoofinta dhuxusha taas oo ay go'aanba ka soo saartay qaramada midoobay. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warki oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawada haddana nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 saacan ku baahi doono janalka YouTube-ka dalka TV Media waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka.